Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada cashirkii labaad ee buuggii ahaa The Lady or the Tiger qeybtiisii labaad. Waxaa dhahnay qeybtii koowaad buuggan waxa uu ka hadlayaa sheeko xiriireed. Marka muhiimadiisu ma ahan sheekada, laakiin muhiimadiisu waa ereyada iyo hab dhismeedka luqadda ku jira buuggan. Haddaba qeybtii koowaad waxaan kusoo qaadanay boqorkii oo yiri dadkii shaqaalihiisa ahaa inuu yiri garoon dhis. Marka qeybtana waa isla sheekadii halkeed ayaan kasii wadaynaa. Waxaan ku bilaabanaa mowduuc kor oo ah The Lady or the Tiger Part 2, qeybtii labaad ee The Lady or the Tiger buuggii ahaa. My people, my friends, he said. First, I want to thank all the workers for their good work. My people, dadkaygu, my friends, saaxiibadeydiyo ay noqonaysaa ama saaxiibadeyda, dadkayga saaxiibadeyda. He said, ayuu yiri, firstly, ugu horeyntii, I want to thank all the workers for their good work. Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo. Firstly, waa ugu horeyntii. I want to thank, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo all the workers, dhammaan shaqaalihii ama shaqaalaha for their good work, shaqadoodii wacnayd. Good work waxa weeye waa shaqada wacan. Waa halkan waa good work, waa shaqada wacan. Marka we now have a beautiful stadium and it is very well built. Waxa uu leeyahay boqorkii, we now have a beautiful stadium. Hadda waxaan haysanaa stadium aad u qurux badan ayuu leeyahay. Beautiful waa qurux badan. A beautiful stadium waa garoon weeye. Stadium garoon meesha barxadda ama garoon ama waxyaabo badan loo dhihi karaa Soomaaliga. Marka we now have a beautiful stadium. Hadda waxaan leenahay garoon ama barxad qurux badan ayaan leenahay, and it is very well built. Si qurux badanna waa loo dhisay. Yani well built waxa weeye si qurux badan ayaa loo dhisay. Mafahant? Marka xigta wuxuu yiri secondly, waa marka xigta ama marka labaad. I know that many of you want to see games and dancing here. Marka xigta I know, waan ogahay buu leeyahay, that many of you, in badan oo idinka mid ah, that many of you want to see games and dancing here. Kuwa badan oo idinka mid ah halkan waxay doonayaan inay ku arkaan micnaha qoobka ciyaar iyo games. Yani wuxuu leeyahay marka waan dareensanahay dad badan oo idinka mid ah inay doonayaan inay halkan dancing ama qoobka ciyaar ay ku sameeyaan oo mataqaanaa ciyaar micnaha ay ku dhilaan ama ciyaaro in lagu ciyaaro garoonka ay doonayaan. But buu leeyahay laakiinse this stadium is going to be different. wuxuu noqon doonaa buu leeyahay mid ka duwan intaas aan soo sheegnay. Yani wuxuu ka duwanaan doonaa buu leeyahay, wuxuu ka duwanaan doonaa inuu ahaado mid lagu ciyaaro. It is not going to be a place for having a good time. Ma noqon doono boos ama meel lagu meel mataqaana waqti fiican lagu qaato buu leeyahay. Ma noqon doono, yani meel waqti fiican lagu qaato ma noqon doono ayuu leeyahay. It's not going to be a place for having a good time. Ma noqon doono meel waqti fiican lagu qaato. It is going to be a place for wrongdoers. Wuxuu noqon doonaa buu leeyahay boos ama meel kuwa khaladaadka sameeya ayuu noqon doonaa.
if one of you does something wrong haddii mid idinka ka mid ah sameeyo waxyaabo khalad ah inuu hadduu sameeyo buu leeyahay we are going to bring him to this place waxaan doonaynaa buu leeyahay ama waxaan samayn doonaa aan keeni doonaa halkan ayaan keeni doonaa booskan yani garoonkan ayuu leeyahay ayaan keeni doonaa haddii mid idinka ka mid ah buu leeyahay uu khalad ku dhaqaaqo waxaa la keeni doonaa halkan if one of you does something wrong we are going to bring him to this place halkan ayaan keeni doonaa there he must stand in the middle of this stadium in front of us all wuxuu taagan yahay ama wuxuu leeyahay yani qofka la soo qabtay waa inuu istaaga bartamaha garoonkan yani horteena dhammaan horteena ayuu leeyahay yani dadkan hortooda oo dhan ama dhammaanteena horteen waa inuu istaaga oo ah bartamaha garoonka ayuu leeyahay boqorka ayaa sidaas leh marka haddii qof uu sameeyo khalad yani waa lasoo qaban doonaayo halkan ayaa la keeni doonaa now do you all see those two doors colored blue at the far end of this stadium now hadda marka do you all see those two doors ma u jeedin buu leeyahay ama ma aragtin labada albaab ee colored blue lagu midabkooda laga dhigay bay noqonaysaa midabkooda laga dhigay bluega color waxay ahayd waa midab laakiin hadda waxaa colorka ayaa verb laga dhigay oo wuxuu leeyahay kuwa la kalareeyay ee bluega laga dhigay oo ah dhamaadka stadiumka ama meesha ugu dambeysa at the far end of the stadium waa halka ugu dambeysa stadiumka kuwa laga sameeyay ma u jeedin buu leeyahay they look the same perhaps yani waxa laga yaabaa ama waxa macquul ah inay isku mid u muuqdaan buu leeyahay they look the same perhaps waxa weeye waa macquul inay isku mid ahaadaan yani waa macquul weeye ama waxa laga yaabaa inay isku mid idin ka muuqdaan but they are not ayuu leeyahay laakiin ma ahan isku mid behind one door hal albaab ka mid ah gadaashiisa I'm going to put a dangerous animal a tiger mid ka mid ah marka albaabyadaas yani gadaashiisa waxaan dhigi doonaa buu leeyahay yani xayawaan khatar ah ama yani dangerous wey khatar wey magarantay animal waa xayawaan khatar ayaan dhigi doonaa oo nolosha khatar ku ah macnaha kaasi oo ah tiger shabeel behind the other door gadaasha ama albaabka kale gadaashiina waxaan dhigi doonaa there's going to be a beautiful lady sidoo kale albaabka kale gadaashiisa waxaa la dhigi doonaa ama la geyn doonaa gabar qurux badan buu leeyahay lady waa dumar waa haweeney ayaan dhigi doonaa buu leeyahay the wrong doors kuwa marka khaladaadka sameeyey mataqaana lasoo qabtay must choose one of these doors waa inuu marka doortaa ama ay doortaan ragga lasoo qabtay qofka lasoo qabtay ee dembiga lagu soo qabtay ama khaladka sameeyey waa inuu marka mid ka mid ah doorta albaabyadan if he opens the wrong door haddii uu furo marka albaabyadan mid ka mid ah midka khaldan hadduu furo if he opens the wrong door haddii uu furo ama albaab khaldan haddii uu furo yani albaab khaldan waxaa loola jeeda midka shabaalka uu ku jiray marka he finds wuxuu heli doonaa the tiger shabaal ayaa marka uu heli doonaa marka albaabka khaldan hadduu furo it jumps out albaabka ay kasoo boodi doontaa marka shabaalka ayaa loola jeedaa and kills him waxayna dili doontaa ninkii ama qofkii khaladka sameeyey ay dili doontaa yani waxaa marka meesha ka muuqata dadka inta badan khaladka sameeyey inay rag yihiin wiilal ay yihiin marka sheekadasaan aan ka dhadhaminayno marka wuxuu taagan yahay albaabyada oo isku mid
lama kala garanayo buluug ayaa colored looga dhigay ama la mariyey laakiin mid waxaa la dhigi doonaa gabar qurux badan madka kalena shabeel ayaa la dhigi doonaa haddii uu qofku uu furo madka khaldan ilbaabka khaldan wuxuu ka heli doonaa ama ugu soo bixi doonaa shabeel the jumps out sidoo kale way soo boodaysaa oo banaanka ay ugu soo boodaya shabeelka markuu ninkan ilbaabka furo and kills him waynu dilaya marka shabeelka ayaa qofkii cun ayaa dilaya if he opens haddii uu furo the other door ilbaabka kalena he finds wuxuu helayaa the beautiful young woman gabar yaroo qurux badan ama haweeney yaroo qurux badan ayuu helayaa oo markuu ilbaabkii saxda ahaa ama kii wanaagsana uu furo gabadhaas ayaa ugu soo baxaysa she is to be his wife waa inay noqotaa markaas buu leeyahay xaaskiisa waa inay noqotaa ayuu leeyahay marka they must marry immediately right here in the stadium before our eyes marka wuxuu taagan yahay ama wuxuu leeyahay boqorkii they must marry waa inay isku guursadaan marka waa inay isguursadaan immediately durbaba waa inay isguursadaan right here halkan bay markaas isku guursanayaan uu leeyahay the stadiumka dhexdiisa ama garoonka dhexdiisa before our eyes yani indhahayna hortooda ay isla markiiba isguursanayaan macnaha after that intaa kadib they can live waxay ku noolaan karaan marka waa labadii wiilkii iyo gabadhii hadday nasiib isku helaan ama ninkii hadduu nasiib badnaayo they can live happily with us as a husband and a wife waxa uu leeyahay marka waxay ku noolaan karaan yani qoys qurux badan oo waxay ku noolaan karaan buu leeyahay qoys qurux badan oo farxad ku dheehan tahay ama farxad leh ayay dhisan karaan oo ah as a husband sidii say ama nin iyo naagtii oo kale ayay u noolaan doonaan oo mad farxad leh ay ku noolaan doonaan ama qoys farxad leh so each wrongdoers marka sidaa darteeda qof kasta oo sameeya khalad must choose very carefully waa inuu si taxadar leh u doortaa marka albaabada laga hadlaya before he chooses intuusan asiga dooranin ilbaabka ayuu ula jeedaa he and we cannot know if he is going to live or to die marka man garanayno buu leeyahay intuusan asiga dooranin annaga iyo asagaba garan mayno ma garan doono inuu noolanayo inuu dhimanayo as soon as he opens one of those two doors as soon as yani sida ugu dhaqsiyaha badan marka uu furo mid ka mid ah albaabadaas labada ah we all know immediately durbaba waan garan doonaa yani marka uu furo mid ka mid ah albaabadaas that is my idea taasi waa fikradeyda ayuu leeyahay boqorkii so tell me my friends saaxiibadeediiyow ii sheega is it a good idea or is it not yani wuxuu leeyahay taasi waa fikradeyda ee garoonka loo dhisay sidaa darteed saaxiibadeediiyow ii sheega is it a good idea or it is not ma fikrad wacan baa oo wanaagsan ama mad aan sax ahayn it is good waa mad wanaagsan oh king boqorkeeniyow waa mad wanaagsan it is very good mid aad u wanaagsan weeyaan the people answered dadkii ayaa sidaas ku jawaabay but laakiinse they were fried waxay ahaayeen kuwo aamusan ama aan hadalba karin they were quiet waxa weeye waa kuwo aamusan oo they were fried wayna baqanayeen casharkan aad buu u dheeryahay maanta laakiin yani waxoogaa ugu badnaa laakiin waxaan rajaynayaa in badan oo idinka mid ah ama dadka dhegeysan doona ama daawan doona in ay ka faa'iideen
erayo. Marka waxaan idinkaga tegayaa inta casharkan ama videogan mid lamid aan ku kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo. Wixii talo iyo tusaale ah commenti kasoo bix, haddaad ka heshayna like dheh. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.